بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qaayaha badan waxaan idinku soo dhaweyneynaa arooskaynu maanta u nimi aynu kasoo qayb galnay naaji maxamed roble iyo cashe cabdulqaadir yuusuf oo aan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayo in uu dhismaha reerka inoo fududeeyo inoo sahlo insha allahu tacaala. waxaan ku bilaabanaynaa aayado qur-aana oo inoo akhrin doono walaalkeen macalin maxamed ibraahim saalax waan kusoo dhaweynaya falyatafadal mashkuuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. جزاك الله خيرا. إلهي سبحانه وتعالى آياتها قرآن كهي نوافع إن شاء الله تعالى. waxaan galaynaa nuxurkii hawsha aynu isugu nimi insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu watacaala dad muslimiin inaga dhigay, dad soomaaliyeedna waa inaga dhigay, laakiin haddana qoysas buu inaga dhigay. waxaan rajeynayaa inaan kusoo dhaweeyo axmed cawad ismaaciil insha allahu tacaala. falyatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay inaan ilaah baa mahadleh aan idiin mahadnaqo dadka kasoo qayb galayaasha xafladatan ama munaasabadan aada iyo aada u qaaliga ah. waxaan kale u mahadnaqayaa reerkaanu ardaadhiga u nahay oo golahan sharafta leh inagu soo wada casumo, inagu soo wada maamuusay oo soo diyaariya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. soomaalida waxaa tiradaa waxay araggiisu ku deeqaa oontiisu ku deeqdaa. abtiyaal waa mahadsantii, waan ku faraxsanahay inaad golo wanaagsan nagu soo dhaweyseen. waxaa ardaadhig baanu nahay insha allahu oo aad idinkuna dalabkeega naga aqbali doontaan. aanu ardaadhiga u nahay sida caadada ahayd. arrintan oo kale waxay kasii hadhay dhaqamada weli aynu sii haynay wanaagsan. marka reer muslim la dhisaayo in dee laba qabiil soo hor fadhiistaan waana sharafta ugu weyn ee la samayn karo. dhaqamo badan bay naga lumay, laakiin tan si fiican baynu u haynaa alxamdulilah. haddaanu nahay reerka ardaadhiga ah walow golahu uu buuxo oo dee dadkeeni soomaalida ay wada joogaan, waxaanu
waxaanu wadnaa suldaan cabdiraxmaan oo ka mid ah suldaamada beesha ardaadhiga ama beesha habar jeclaba oo dee aada iyo aada qaali noogu ah. haddaanu isaga weynena qaar kalaanu heli lahayno reerka naga fogeyn aanu keeni lahay. haddaan iyaga intaa weynana mid reer abtiga aanu keeni lahay, mid dhulbaantaa baanu keeni lahay. intaas waa iga qabtay. marka waxaan kusoo dhawaynaya sultaan cabdiraxmaan oo codsiga iyaga soo gudbinaya. mar labaad baan idiin mahadnaqayaa, mar labaad baan reerkan ardaadhiga u nahay noo mahadnaqaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. anigu kolley dadka badidiisa waxa laga yaabaa dee inayn iswada garanayno, laakiin waxaan ahaan jiray reer Oslo. maadaama suldaan soo noqdo Oslo u soo noqdayna Oslo dhan baan horta suldaan u ah, horta qoys ku dhowna yihiin. laakiin sida dhaqanku yahay odayaashii waxay ka xishoodeen dee iyadoo suldaan joogo iyo adaa oday kale hadlo oo baa laga xishooday, laakiin dee Oslo dhan baan suldaan u wada ahay. marka insha allahu labadan yaryarna dee suldaan baan ahaa, waan isu doonayaa. ninka la yidhaahdo Naaji Maxamed Rooble ayaanu u doonaynaa Caasho Cabdulqaadir Yuusuf. waxaanuna weydiisanaynaa qoyska inantu tahay, anigoo ku halqabsanaya Maxamuud Qaalib Siciid. waxaan leenahay inantaa dee nasiya noona meheriye. ما شاء الله horta abtiyaashii waan anigu maanta waxaa laga yaabaa maadaama xidhiidhi ahay farxad badan bay tahay. reerkii antoolka u ahaa aabahay kasoo jeeday abtiyaashay oo gabadh naga doonayay, marka waxaan isku dayaya inaan cadaalad sameeyo. farxad dheeraanada waa ii tahay. marka abtiyaal waa mahadsanti insha allahu tacaala. darabka tolkay baan ayaan u wareejinaya insha allahu tacaala. iyo maxamuud qaalib saciid falyatafadal mashkuuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore ilaah baa mahad leh. waxaan aada ugu mahadcelinayaa martida sharafta leh, isimada, odayada, dhalinyarada iyo dhammaan dadka soo ajiibay codsigii faamiligu direen reer Cabdulqaadir Yuusuf. aad baan niga mahadcelinayaa. marka xigta waxa la isugu yimaado waxa ugu wanaagsan waa guri islaam oo la sameynayo. hawl khayr leh baan u fadhinaa. ilaahay idankiina waxaan ka rajaynayaa gurigaasi guri khayr qaba inuu noqdo. intaa waxaa ii dheer, suldaan baa gabadhana weydiistay isagoo magaca habar jeclana wakiilka ah. haddaba saldaniyeed kalaa ku siinaysa gabadha. saldaniyadihii weliba gobollada waqooyi ugu miisaanka weynaa baa ku siinaya, gabadhu ku guddoonsiinaya, iyo harti iyo daaroodba. marka taa horta ogaada. waxaan si sharaf leh oo gobonnimo ku jirto unu aada u culus iniga guddoonnay aqbalkii aada noo soo jeedisay. Naaji Maxamed Rooble waxaanu si sharaf iyo karaamo leh u siinay Caasho Cabdulqaadir Yuusuf. wayniga guddoonnay, waanayni siinay gabadhii, meherkiina waa inii raacinay. intaa waxaa dheer waalidiintii soo barbaariyey dhalinyaradan maanta inaan u mahadnaqo. xusno ayaa muhiima. aabe Cabdulqaadir Yuusuf iyo Maymuun Maxamed oo gabadha soo barbaariyey mahadnaq baan u jeedinaynaa. Maxamed Rooble iyo Ismahaan Axmed iyadana sidaas leeg baan waalidiinta labadaa ku soo barbaariyey. intayna kale aabayaasha ee dhalinyaradu u joogto labada dhinacba rag iyo dumarba leh, hawshaa maanta mid la mid ah baa inoo taalo laynaga sugaya. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. abti waanu guddoomanay. waxaan bixinayaa gabaati geeliina waanu mar haddaad tidhi ismadii ugu waaweynaaye yaa gabadha bixinaya. geeliina dee wuxuuba joogaa sol buu joogaa geeli Maxamed Rooble. waan hubaa markaa waqtigiisa weeye waa diyaar. aad baad umahadsantahay abti. abti waa kaa guddoonnay suuriyada iyo geelaba. waana wax lagu yaqaanay dee dhaqanka. waxaa la moodaa runtii dee dhaqanku weynagu dameeyaa
waxyaabaha inooga sii haray bay ka mid tahay aad baan kaaga ajibay abti aad baana kuugu mahad celinaya thank you so much abti assalaamu calaykum waxaan farxad dheeraad aniga ii tahay sida uu muuse sheegay waan ilaaweynan muuse marka hore sheegee runtii farxad dheeraada ii tahay marka labadaa reer soo hor fadhiistaan ee aan dhex joogo wax kalaan dareemaa runtii muusena wanuba waa sidaa muuse abti labada dhinacba abti waynu isaga leeyahay arrintaa waa kula qabaa waadna mahadsantahay جزاكم الله خيرا وحين إن شاء الله تعالى وجدنا قيمتي بمهم سنيد يا مهركي الشيخ محمد بعر يكون جنا إن شاء الله تعالى وإن شاء الله أنت هذا ينور من دونا يدور عليه وهذا يسوي شيء دونا مهركم مركوبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما بعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انت كذب إن شاء الله استفتاحا ناجي محمد روبلة عبد القادر يوسف oo ii wakiishay iina dhiibay walaayada gabadhiisa isaga u dhalay caasha cabdulqaadir yuusuf oo meherkeegu 5,000 yahay waan ku guuri $5,000 yahay waan ku guuriye ma aqbasha waan aqbalay بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله دعاءها لو قد إلهينا وحنك الرجيلنا غير بركة يسانين وكدقو إلهينا توفيق دوافجيو ضد جعل أسرة إسلامي إلهينا وكدقو بارك الله فيكم جزا الله خيرا ويلك ودعينا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله تعالى وحن ميكروفونك هذا أنكو وريتشنا يا عبد الرحمن فارح وإنو نقانا عبد الرحمن سيارة إن شاء الله تعالى وذيك وقدم بين دون هدية بيضا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا شرفت له هذا مبارك أمها علينا سوق بغلياشة رمضة خاصة شيخ معر السلطان هذا عبد الرحمن وهذا ماشي أحمد عودي ربنا خيانته وصلاته لكن بعد كم طبعا ساعات هذا أبتي على السعودية وقت كنا ويسوع أبتي يبقى أديروني وواحد المفرح حرتي أحمد عود هي أبتي عادي يعني ما رحت سواق غير هذا هذا روح كم روح أوقاتي ثواني واحد ما ربنا الواحد waxay noo haray waa hawsha hadda ay ku xigto sharafta ale aan jeeda marka waa ambaashador adcin weeye أبغى ولا بدأ ولا تعرف لكن على وقت بدأ الماس هذا أرجوه وحاول الشباب صدق دكتورنا ساسو كان حتى هو ذاك يقبل وأدوينه بيشان هيد توي يقول اعتذا هيد خير الله سيو وحاركم قال إنه قبرنا معلم وها وصوص على بدي مساجد كتوفود خير الله سيو hawl badan buu inoo hayaa waa la socotaan wuxuu soo saaray generation dadka maanta in halka ugu dabaaldegayno asaga soo saaray iyadoo midaba arooskaas waa inuu tagno oo Sheekh Muuse iyo Mawlid iyo ay hogaaminayaan iyo dhamaad ciyaarta
waxaa hogaaminaya waa un meesha masaajidka dad ka soo baxay ilaa iyo xilligii la aasaasay oo marxaladda soo baray marka aad iyo aad intaa hadalka u qaaday waxaa weye dadku abti iyo adeer iyo eedu isu yahay halka halaga sii wado aynu ku dadaala wixii wanaag yaroo ah aynu ku wada biiroono. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحكسر وين يا أحمد حاج إبراهيم إن شاء الله تعالى فلنتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيارة شرفت له كسو قيب كشيء مناسبة أي نوع السلمين عبد القادر يوسف علماء له سرادين تله دليرة له جورت له دمان ويدو ودا السلامية. Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal maxaa hadhay baa la yidhaha anaa u hadhay lama yidhaho wixii annagu mar haddaanu ilaa suldaankaygii wadanay oo garaadadii hadleen hadal badan oo kale mahadnaq mooyaane halkan igama fura laakiin intaan ka hadlayaa waxaa weeye Soomaalida haddaynu nahay horta inta halkan fadhida ayaynu nahay intan imika calaamada kala sheeganaysa waa un inta halkan fadhida marka inaynu weligeenba sidaa un ahaanayno oo ay ka weyn tahay waxaynu nahay horta dadku weynu ogaadaa aad iyo aad baan ugu idinku mahadnaqayaa mahadna waxa la ilaahay ina kulansiiyay waxaan kale u mahadnaqle dadku qaybina waa marti qaybina waa wixii dadka marti qaaday Cabdiqaadir iyo qoyskiisu dee anagu marti baanu hayno martidii siday noo qaabileen ayaanu mahadnaq mar dambe ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin qoyskaana waxaanu rajaynaynaa kolleyba inaanay inantaasoo aanu xilkeeda ka soo baxno oo inankaas uu noqdo inaan inantaa iyo qoyskaas wanaagsan uga soo baxa oo aanay inantaasu ninbaa waxa la yidhi inan buu lahaa markaasuu nin u guuriyado markaasuu 100 halaad ka qaato dabadeedna wuu ku soo celiyo wuxuu yidhi 3 xaaloon baan anigu kaa rabaa inantaydaas weligeed ma gaajoon inaanay gaajoon ma arradina inaanay arradin waa loo shaqayn jiray in loo shaqeeyo marka inantaana waxaanu ka soo baxaynaa wixii xilkeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد حاج إبراهيم جزاه الله خيرا. ناجي محمد الرولي أبتي كل وحاص علمه وضيانا سنادين وقال قراده إن شاء الله تعالى أديك سببت هذا ما أنت وكل بال أديك أنا إن شاء الله تعالى قبل دي نقول قدوسية هتروح حكورة إن شاء الله تعالى نقدر أنت عليس